munaasabad ballaaran oo habeen xalayta lagu qabtay magaalada Laascaanood ayaa lagu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaana ka soo qayb galay maamulka dawladda hoose degmada Laascaanood oo hogaaminaya maayarka iyo xogayaha fulinta gudoomiyaha maamulka gobolka Sool wasiir ku-xigeenka wasiir dawladda wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo baahda xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka Sool waxaana halkaas hadalla hambalyo u badan looga soo jeediyay dhammaan mas'uuliyiintii ka hadashay بعد الصلاة حفلة قروح بدن وحنا عاوز وقفا قابلني waxay isugu jirtaa laba arrimood mid waa hambalyo aan u dirayno madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland doortay Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici mid waa hambalyada takalana waxa weeye inaan u ducayno oo waa duco in Ilaahay xilka loo doortay inuu Ilaahay u fududeeyo kuna asturo بعد السلام أنا فرحت بيتها إن أنا عاو هالكن مادو أنا قلت الله يا مجا حسب كل مية قبل خصال سببته وحن سوتشوي دور الشديد محمد محمود السيلايو أنا كنت دوراني وهاي في هذا جيدين maalintii aanu dooranay xaaladdu meeshay maraysay iyo tan oo maanta aanu ku dooranay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo aad ogtihiin sida xaaladdu ay marsay inta u dhaxaysay runtii ado cod bixin inta baad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahadnaqayaa odaygii khabiirkii madaxweynihii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo ka sii degaya xilka madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay Allah ku barakeeyo reer Sool horumar buu gaaray nabadgelyo gaaray wuxuu gaaray inuu isdiiwaan geliyo oo doorasho ka qayb galo u qabatay aan u dhignay hambaryada madaxweynaha ama ducadiisa anigu waxaan qabaa inaan u hambariyo dadweynaha oo ugu horeeyaan haweenku oo aad iyo aad muddo 3 bilood bariga galbeed baa u guntaday in ay Muuse iyo Cabdiraxmaan Saylici kuraasta saaraan Ilaahay baa u qoray si cadaalad ah lagu doorashada dalka ka dhacday waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba hambalyo leeyahay xisbiyadii sida daacadda u tartamay ee sida raganimada leh ee xor ah ee xalaal u kala helay haday yihiin hogaamiyayaashoodii taaniyeeyay doorashadan waxaan leeyahay Soomaaliland maanta way dhaqaaqday waa madaxweynihii shanaad ee ku soo baxa rabitaanka shacabka war waxa ay ka gudubno waxa aad aaminsan tahay ayaad ku ridaysaa kaarkaaga berrito maanta waxayna dhaaftay doorashadii madaxweynaha berri waxa soo galaysaa doorashadii golaha deegaanka waxa la rabaa inaynu golaha deegaanka ku doorano waxa la rabaa golaha deegaanka berri inaynu ku doorano waxqabadkiisa kartidiisa aqoontiisa ma aha inaynu ku doorano isku reer baanu nahay saaxiib baanu qiimaha iyo qaayaha leh ayaa lagu qabtay magaalada Laascaanood oo ujeedkeedu weyn uu yahay hambalyo iyo soo dhaweyn madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici loogu hambalyeynayo xilka cusub ee madaxweynenimada iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland in loogu hambalyeeyo marka hore waxaan leenahay hambalyo marka labaadna waa Ilaahay baan uga baryeynaa in xilkaan loo dhiibay ee qaranka Soomaaliland shacab ay u doorteen in Ilaahay uu ku asturo oo ay sida xaq u yahay Ilaahay ugu meel mariyo وبرخ عمر أحمد الباينت قرق جمهورية الصوماليلاند Laascaanood